kulan ballaaran oo wadatashiga maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha magaalada Mooyaale Mudane Bishaar Aadan Kiyeto iyo ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Mooyaale ayaa waxaa ka soo baxay kulankaasi qodobo dhowr ah oo ku hor akhriyay gudoomiyaha magaalada ganacsatada hortoodii hadaladiisana waxaa ka mid ahaa fagaaraheena ballaaran maanta wuxuu noqonayaa fagaara aan ka wada hadlayno ganacsatada degmada Mooyaale ayaan maanta shir la qaadanaynaa shir wadatashi ah ayaan maanta la qaadanaynaa shirkaas oo aan ka wada hadlayno ganacsiga sharci darrada in la joojiyo si sharcina ganacsi sharcina in laga shaqeysto ayaan ka wada hadlaynaa kulli ganacsiga sharci darrada waxyaabo badan baa jira oo degmadeena ama deegaan ahaanba ka jira marka waxyaabahaasi sharci darrada ah inaan laga ganacsanin cidii ka ganacsatana tallaabo laga qaado oo ama meesha sharciga lagu soo dhaweeyo ayaan maanta ka wada hadlaynaa sidoo kale gudoomiyaha waxa uu soo hadal qaaday ku ganacsiga sharci darrada ah qofka lagu helana uu la tiigsan doono sharciga kulli ganacsiga sharci darrada dalkana uma fiicno dadkana uma fiicno wax dhibaato buu geystaa wax faa'iido uu keenayo malaha marka kan dhibaatada leh intaan iska dhaafno ganacsiga sharciga ee bannaan in laga ganacsado yaan soo jeedinayna marka ganacsigaasi waxyaabo badan oo sharci ah oo laga ganacsan kara ayaa jira cid kasta waa inay maanta laga bilaabo wixii sharci darrada in la joojiyo cidda lagu arko ama cidda laga shakiyana meesha sharciga lagu soo dhaweeyo yaan idin soo jeedinayna wixii sharciya shatiga intaad qaadataan ganacsiga dukaanka ha noqoto gawaarilayda ha noqoto ganacsatada waaweyn ee gawaarida xamuulka leh ha noqoto kuwa taksiilayda ha noqoto kuwa bajaajada ha noqdaan marka waxaan idin soo jeedinaynaa inaad ka ganacsataan wixii sharciya ee uu sharcigu ogol yahay inaad ka ganacsataan yaan idinku soo jeedinaynaa ahaan qodobka koowaad xaaladda ganacsiga sharciga ayaanu ka wada hadlaynay oo maanta laga bilaabo cid sharci darro ka ganacsata in degmadan aan lagu arki karin haddii lagu arkana sharcigan horgeyn doono sharcigana la dhadhamsiin doono ayaan idin soo jeedinaynaa lamida gudoomiyaha waxa uu ka hadlay sicir bararka baahsan ee ka jira deegaanka maxaa keenay ama maxaa sababay muxuu xalka noqon karaa gudoomiyaha oo noo faahfaahinaya hadaladiisa waa kan arintaas saddexaad oo halkaan ku soo daraynana waxa weeyaan sixir barar badan ba ayaa jira kulay bulshadu halis bay ku sugan tahay xagga sixir bararka arinta sixir bararkana in aad saacadan laga bilaabo xafiiska ganacsiga uu ka howlgalo dukaan kastana uu galo meel kastana uu galo wixii sixir barar lagu arkana sharciga in lagu soo dhaweeyo ayaan maanta ka wada hadlaynaa maadaama ganacsatada degmada tihiin sixir bararkana inaad ka foojignaataan inaad ka fogaataan ayaan idin soo jeedinaynaa wixii alaaba ee la keenayo dalka gudihiisa in laga keeno dalka gudihiisa marka laga keeno sixir barar kuma iimaanaya ama sixir bararka cidda keentana tallaabo waa laga qaadi karaa annaguna ka dawlad ahaan kontaroolka ama dabagalka waan adkaynaynaa idinka ganacsataduna inaad xil saartaan oo sixir bararka aad ka fogaataan oo aad iska ilaalisaan ayaan idinku soo jeedinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa warkan idin soo diyaariyay wariyaheena Cabdifataax Xasan Ciimoy waxa idin soo codsiinaya anigoo ah Cabbaas Dheere sidaas awgeed waxyaabo fara badan ayuu gudoomiyaha degmada Mooyaale Bishaar Aadan Kiyeto uu ka soo dhaweeyay agagaar hoolka weyn ee shirka degmada Mooyaale Xasan Isaaq Daawa TV degmada Mooyaale ee gobolkaasi Daawa intaan mid lamid ah idin kula kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo